horumarka ganacsiga waxa saldhig u ah 4 shay. Shayga koowaad waxa weeyaan waa in uu leeyahay nidaam, yani inuu leeyahay system, workflow systemka waxa la dhahdo amba nidaam shaqo waa hanaan loo garanayo dhammaan shaqooyinka inta in la qabto iyo qaabka loo qabanayo iyo halka laga bilaabayo halka lagu dhammaynayo. Marka mid waa kaas. Inta badanna tan waxa weeyaan ganacsiyadu male waana halka jahwareerku ka yimaado. In badan waxa weeyaan ay ka timaado in ay iskhilaafaan mulkiilayaasha ganacsiyada ama maamulada ganacsiyada iyo shaqaalahoodu. waayo markaan u jirin wax documenta oo workflow systemi way adkaanaysaa xataa qofka qaabkii loola xisaabtami lahaa. Qodobka labaad wuxuu noqonayaa nidaamka maaraynta dakhliga soo gelaya ganacsiga iyo dhammaan kharashaadka ka baxaya. Katanina waa mid ay inta badan aanay ku baraarugsanayn dhalinyarada bilaabay ganacsiyada yaryar iyo ganacsiyada dhexe laftigooda qaar ka mid ah. Tan oo keensanaysa in isku dheelitirkii ganacsiga waxa soo gelaya waxa ka baxaya uu meesha ka baxo. waxaanay horseedi karaysaa khasaare weyn bay horseedi karaysaa ganacsigii waana sababta ganacsiga yaryari ay u guuldaraystaan sanadka u horeeyaan labada sano u horeeya waqtiga ay la asaasay kadib. qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa waa nidaamka ama istiraatiijiyadda suuqgeynta. istiraatiijiyadda suuqgeynta waxaa soo hoosgelaya sidii wax loo xayeysiin lahaa, waxaa soo hoosgelaya qaabkii loo qaadi lahaa kambeynada marketingka, yani suuqgeynta ama qaabkii advertisementka loo samayn lahaa ama si kasta oo lagu soo jiidan lahaa oo wanaagsan macaamiisha. Marka tanina waa mid inta badan aanay dhaadanayn dhalinyarada ganacsiyada sameeyey iyo shirkadka qaarkood ah. halkani waa halka ahla abuurnimadu ay ka timaado oo halkay ku kala duwanaadaan ganacsiyadu waa halka sahasha in laga dhex arki karayo shirkadaas ama goobta ganacsiga inay joogaan dad hal abuurnimo suuqgeyneed leh, dad khibrad leh iyo dad awood leh inay bedelaan suuq oo ay noqdaan dad change makers amba game changers. Marka haddii aanay lahayn waxa weeye istiraatiijiyad suuqgeyneed tanina caqabad weyn bay kuu keeni doontaa oo waxba kaama socon doonaan. waana taayirka ugu muhiimsan 4 taayir ee uu ganacsigu ku socdo. qodobka u dambeeya waxa weeyaan waa nidaamka maamulka iyo shakhsiyadda qofka maamulaya isla goobtaas. haddii waxa weeyaan nidaamkaaga maamul uu yahay mid khalkhalsan ama tahay qof aan awood u lahayn inuu cid hogaamiyo waxa weeye khalkhal badan ma ku iman doona ganacsiga laftigiisa. haddii shakhsiyaddaada laftigeedu aanay ahayn shakhsiyad u tababaran oo waxa weeyaan awood u leh inay maarayso caqabadaha ka hor imanaya ganacsiga, hadday noqoto dhanka maamulka shaqaalaha iyo hadday noqoto dhanka maamulidda iyo maaraynta caqabadaha, iyaduna caqabad kale ay noqon doontaa. dadka ugu wanaagsani waa kuwa garanaya waxa weeyaan xisaabtama qaacidada tirahda right person right position, in qof kasta la dhigo goobtiisa uu ku habboon yahay oo positionka ku habboon yahay loo dhiibo. tan waxay dareemi karaya qof khibrad wanaagsan oo maamul leh.